alxamdulilah shukrillah rabbilcaalamiin waqti kale oo xiisa leh ayaan dib isugu soo noqonay ilaahay rabbiga raxmaanka ayaa ku mahadsan kun iyo kow jeerba asiga ilaahay mahadda iska leh awalan waxaan hadda isugu soo laabanay insha allah bismillaah kariim dowladda turkiga oo waad ogtihiin oo dowladda walaalaheen maaragtay mar walba na caawiso na garab taagan ilaahay ka sugo mar walba iyadu na garab taagan oo na caawiso oo dhiigeedu ku baxo wadankayna ayaa maaragtay maanta meeshan loo joogaa in maaragtay ayaguna ay ka hadlayaan cabdixafiid wariye cabdixafiid ayaa soo gudbiyey ana halkan ku arkay maasha allah tabaarakallah waan ku faraxsanahay dowladda turkiga waa dadka walaalaheena kaliya oo isku qalbigeyna oo naga naxay wadanku markuu burbursanay wax kasta noo sameeyay dhiigooda noogu huray inay ku daataan ku dhintaan dhaqaatiir badan ku dhintaan injineero badan marka waxaan leenahay dowladda turkiga waad ogtihiin waaba hooyadayni labaad wadankayni labaad haddana dadka oo dhan Soomaalida waad aragteen turkiga maasha allah tabaarakallah fasaxa waa u tageen guryo waa ka dhisteen soo maaragtay adduunyo dhan ay ka sameysteen horumar aan la soo koobi karin maasha allah tabaarakallah marka waxaan leeyahay walaalaheena turkiga jira oo jooga abaal waa leenahay ma yihiin dadka Soomaalida dad abaal la gashto ayuu yiri abaal waa leenahay marka idinka hordhacay asxaabay waa noo shidaa insha allah dawliyaan waxaad xasuusan kartaan 10 sano ka hor 2011 dalka Soomaaliya xaaladda uu ku sugnaa ayadoo dunidu ay nagu qosleyso oo aan noqonay wax aan jirinin ayuu madaxweynaha Tayyip Erdogan uu ka jirtay caasimadda qaranka Soomaaliya Muqdisho caday taas ayaa waxa ay bedeshay aragtidii dadku ay dunidu ay ka qabtay Soomaaliya gaar ahaan caasimadda waxa kaloo xusin mudan inay dunidu ayna daawanaysay 20 sano ka horreeyay ee dhiigga Soomaaliyeed u daadanay cid ku soo dhiiratay oo isku dayday carab iyo cajabna aysan jirinin inay wax ka qabato inkastoo Nairobi sababa ay ka daawanayeen dhibaatada iyo sida ummadda Soomaaliyeed ay ku jirtay madaxweyne Tayyip Erdogan wuxuu muujiyay leadershipnimo hoggaan iyo waxa uu muujiyay geesinimo iyo inay dadka Soomaalida oo yihiin gob jabtay aysan gun ahayn 10 sano kadib toddobaadkan aanu haatan ku jirnay bisha August ee 2021 dalka Soomaaliya maalinta ka dambaysa wuu soo hagaagayaa dadka Soomaaliyeed ma yihiin haddaba dad abaal la gashto oo abaalka soo waxaynu noqonaynaa sidii umushiyo waan iloobayna waxa jira wadamo fara badan oo Soomaaliya inay garab istaagaan inta badan sheega dhaqaale fara badan xaqiiqatan ku bixiya laakiin turkigu wuxuu kaga duwan yahay waxa ay tahay waxa uu hantay qalbigii iyo maskaxdii dadka Soomaaliyeed sax hagar la'aan ayuu garab istaagay haddii aad eegtid dhinaca miisaal ahaan ilaha dhaqaalaha oo kale waxa kuu muuqanaysa in dekada iyo aeroboortka Muqdisho oo ah meesha ugu badan 75% dhaqaalaha dalka ka soo galo in ay tahay labada meelood oo muhiimka oo dowladda Turkiga ay gacanta ku hayso dhismaheeda iyo horumarkeeda ay ka qayb qaadatay arday fara badan ayaa dalkiisa wax ka barata su'aasha isweydiinta waxay tahay dadka Soomaaliyeed ma dad ka mahadceliya wanaaggaas mise ma ahan dadka kale oo doonaya Soomaaliya inay caawiyaan haddii ay doonayaan in qalbiga iyo maskaxda Soomaaliya ay Soomaalida ay hantaan waxa ku dayasho mudan bay leeyihiin dadka halkan maanta ka soo qayb galay madaxweyne Tayyip Erdogan oo asagu guddig u ahaa in Soomaaliya ay cagaheeda dib ugu istaagto mar labaad si kastaba ha ahaatee si kasta oo dadka Soomaaliyeed loo caawiyo haddaanan isku tashanin oo danta guud meel uga soo jeesanin waxaan noqonaynaa dad dunidu ay ku qosasho oo la daawado oo dhiigooda uu daadanayo sumcadda iyo sharafta iyo ummadda Soomaaliyeed karaamadeediina ay markaas baaba'ayso I realized how hard-working people the Somalis and how intellectual they are and how high their spirit are. And I can see the same spirit now in here. And I'd like this to carry on, inshallah. And we are here as Universal Institute and the Turkish government in the UK to support you in any way we can. Our policy towards Somalia has and will only have one purpose: to help all our sisters and brothers in Somalia, regardless of their political views or ethnic identities, so that they can stand on their own feet. Turkey will continue to support Somalia and its people in achieving lasting peace,
and stability in the country. Thank you very much. As we mark the 10th year anniversary of Somalia and Turkey relationship, this relationship has been an instrumental to the state recovery. It has not only contributed to the state building and development, but has mobilized shared bond around common interests. This has not only positively affected the political scene, but has also created a replicable bond between the relationship between the Somali people and the Turkish people. dadka ka soo qayb galay munaasabadan muhiimka waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdijoon oo ka mid ah qalinleyda Soomaaliyeed qalinleyda Soomaaliyeed cabdiraxmaan markaad eegtid taariikhda sooyaalka sanad guuleeda hadda tobnaad u dabaaldegayno maxaa lagu soo koobi karaa waxqabadka madaxweyne Dayra Georgian iyo dowladda mahadsanid cabdirafiid Soomaaliya iyo Turkey xiriir aad u dheer waxay lahaayeen qarniyo hore si meel dhaxay ku damay 10 sano ka hor madaxweynaha safarkii uu ku tagay Muqdisho wuxuu soo nooleeyay dhig kala xiriirkii dheeraa oo muhiimka ahaa Soomaaliya iyo Turkey waxay kala faa'iideysan karaan waxyaabo badan Soomaaliya waxay ku taala dhul istiraatiiji ah waxay leedahay khayraad fara badan waran hore dadkan Soomaalida iyo Turkidu walaalo ahaayeen oo wiligoodba Turkidu waagi hore waxay deganaan jireen Soomaaliya marka laakiin warun soo wiilka sheegay waqtiyo dhaxo ay meel dhax ku baabaaday xiriirkii laakiin warun aad dib u soo noolee ma sha Allah tabarakallah Soomaaliyana waa meel aad iyo aad u khayraad badan hadii Ilaahay colaadda naga reebo oo dhibaatada Ilaahay naga reebo oo insha Allah barwaaqada inay noo soo celiyo dadka Soomaalida waa dad karti leh waa dad xoog leh waa dad aqli leh waa dad xigmad leh waa dad dumarkooda ay ragoodu kala dhicin oo xoog ay ku shaqeystaan iyo xeelad intaba yaqaan kaliya laakiin barbaleen la daba dhigay oo salka hadii lagu yiraahdo ka fariisan dab lagu la daba taagan yahay dhibaato lagu la daba taagan yahay xoog iyo awood kasto iyo aqli kasto la heeday ma si wadi kartid marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wadankeena nabad nooga dhigo dhibaatadna daba taagana Ilaahay oo naga yasiro amba Ilaahay naga reebo insha Allah bidmillah kalbil aan dhageysano ugu baahnaan karo Turkiga wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo naga u baahnaan karo waxaan dhihi karnaa waa xiriir bilowday loona baahan yahay inuu la sii adkeeyo laakiin insha Allah uu sii adkaanayo marka dad badan waxaa jira qaba Soomaalidu inaysan ka faa'iideysanin fursadaha Turkiga uu hordhigay Soomaaliya marka laga soo tago airportka iyo dekedda iyo waxyaalaha la midka ah tababarka ciidamada siyaabo kale oo wax looga faa'iideysan karay ayagana looga mahadcelin karo ma jirtaa isla meelaha lagu faa'iideysto waxaa ka mid ah waxbarashada iyo caafimaadka laftirkooda way jiraan waxyaabo kaleeto oo haddii haleed infrastructure iskeenay laakiin siyaasadaha loo iska yaraa khariban iyo Soomaalidu mararka qaar ku mashquulsan waxyaabo aysan ahayn ay ku mashquulsho ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa ku lumay fursado aad u badan Cabdinuur Daahir wuxuu ka mid yahay dadka ku noolaa dalka Turkiga muddo dheer khibrad fara badan oo inta badan ka faalooda arrimaha Turkiga iyo Soomaalida Cabdinuur laba waxyaalood oo isleedahay Turkiga waxa deysan qaban lahayn 10 sano ka hor wiigaan oo kale maanta Soomaaliya meeshii joogto ma joogi lahayn maxaa oranayay waa maasanta Cabdinuur waxa isla midda ugu horeysa waxa ay tahay xilligii Turkiga ay imaatay horta waxa lagu sugnaay crisis ama ma aragtay dhibaato xoog badan oo insaaniyadeed oo dad badan la aanay marka Turkiga xitaa faragelintiisii ayadoo ay jirtay waxa dhadaalay qaramada gudaha sheegtay dadku 300 400 kun oo dad oo 4 milyan dad oo Soomaaliya dhintay hadii Turkiga soo farageliyeen waxa laga yaabaa in malaayiin dhimaleen marka faragelintaas Turkiga iyo beesha caalamka oo soo jeesatay dhibaatada jirta taas waxay sababtay dad badan oo majaaca u dhimalahay oo Soomaaliyeed oo magaalooyin waaweyn aad deganeen inay Ilaahay badbaadiyo ay kasoo Turkiga ku badbaado qodobka labaadna waxa dhihi lahaa maanta Turkiga waxyaalaha ay xoog geliyeen oo aad u dhiseen inkastoo meelo kala duwan ay tahay waxa ugu muhiimsan dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo aan aragnay ciidamo professional tababaran awood saxan leh oo ciidamada adduunka ugu xoog badan NATO yiraahdo ama xulafada NATO Turkiga maadaama ku jiro tababarka la siiyo kala la siiya way jira badan yihiin marka Soomaaliya amaankooda in dib u soo celin doonaan haddana waxay ka mid yihiin ciidamada Turkiga tababaray ciidamada ugu anshaxa akhlaaqda fiican ugu dagaalyaasana Soomaaliya marka labadaas qodob hadaysan dhici lahayn Soomaaliya waxa isla maanta meesha ay joogto ma joogin isla uu ka soo baxay waxaan u jeednaa 10 sano ee la soo dhaafay sida Turkiga markano dawladda ay u caawisay Soomaaliya iyo maaragtay mar walba maaragtay ay u caawinayso har iyo habeen ay ugu taagan tahay runtii haddii laga fiiriyo dhinaca caafimaadka dhinaca markano
waxbarashada dhalinyaradeena u dirayaan maaragtay waxbarasho inay kusoo bartaan Turkiga in ay maaragtay dhinacii maaragtay nabadgelyada ay naga caawiyaan oo booliiskeenii iyo maaragtay ciidamadeena ay tababaro ay siinayaan in dhinaca caafimaadka ay naga taakuleynayaan cisbitaalkii maaragtay weynaa ee Digfaar ay dayactireen cisbitaallo kala badan ay qalabeeyaan oo maaragtay ay runtii ay garab taagan yihiin in maaragtay siyaasad ahaan ay maaragtay safaaradda ugu weyn adduunka ee Soomaaliya ka dhisan waxay ku tusinaysaa siday muhiim ugu tahay Soomaaliya dib dhiskeeda ay u muujiyaan inay tahay Soomaaliya ma aha meel sida maaragtay adduunka mar walba dhaho failed state ma fahamtay loo yaqaan mar walba ay caalamka gaar ahaan reer galbeedku ay lagu sheegaan laakiin inuu tusiyo inuu yahay wadan runtii wax loo geli karo waxna loo qaban karo annaguna waxaan halkaan u joognaa caawa inaan muujino inaan nahay dad abaal loo galo inaan nahay waxayna jooga waryar macdaa oo aad si fiican u taqaanaan wararka Britain iyo weliba cook ofta dhinaceeda lagama maro ayaa ka mid ah dadka barnaamijkan caawa lagu soo martaqaaday Saanad soo dhawaad baa kuma عبد الحفيد أدبر ما سنتها جزاكم الله خير رنتي هبين كان عاوة وحيابو بدن أن الأوغين أي هورتان أوغاد أنا أنت ودنك تركيا بوخشدي المدحوينا ودنك تركي وكويمت هدان صومالي نهي أدبر دريم كرنا إن ودنك يسبدل وكل عاي بوخشد أسكدي وحان رنتي أن آدم وفرح سنة كيف بدن ونلاش الصومالي إني وحس كبدلين ترجع because أنا ملتري أهجر وحن نقول له ودن أنا ملتري الحين ما اسمي سيدا سدرت رنتي عادي هذا نقوم هتعلنينا شعب تركيا يمدحوينه هذا اسبدل هذا قرح بدنا عبد الحفيد ودن كم مقدار براشة الشغل الغالية طبعا كم تهي وحي مهم صناعة كلب هذه عاوة سلاذة هاي الله لها مناسبة دار إلا قبضة مهم بيحيد محق قيمة runtii munaasabadan ahmiyadeedu waxay ahayd in la soo bandhigo qiyamkii Soomaalida ay lahayd maxaa yeelay Soomaalida waxa lagu yaqiinay martigelinta iyo abaalgudashada waa wax la isla wada og yahay runtiina dabeecadaas waxa iskala dad yar macnaa Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa khaliil min ibaadihi shukur dad yar shukriya marka Soomaalidu macnaa mar walba abaalkoodii waxay ku gudtaan si xad dhaaf ah marka taas ayaan soo bandhigaynay caawa iyo in la horumariyo xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya maxaa yeelay hadda ilaa heer waxay taagan tahay heer oo horumarineed laakiin ilaa heer ma gelin in isdhexgal oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo dhinaca bulshada marka 10 sano dambe insha Allah macnaa waxaan ka wadnaa tagta daayo timaad ogo 10 sano dambe soo socdo inay xaalada inta ku ekaanin oo ay isu bedesho xaalad miro dhasha oo dhaqaalihii oo wada shaqeyn iskaashi dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada inuu dhaco hadduu Ilaahay yiraahdo sanad guurada dambe waxaan rajaynaynaa in insan ka sii wanaagsanaato hadda miro tan ka weyn inuu soo baxo hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan leenahay qof kastoo Soomaaliya oo mas'uul iska saar waxaana tahay daljira dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed daljira u ah قول بنيين الجيريا ولا بحثنتي ما شاء الله تبارك الله الصحابة مركا انت صحيان كو اكينينا انغانا ما دام اي انت كو اكد ما شاء الله تبارك الله waxaan idin leeyahay haday insha Allah bismillah karim haday idin soo gaarto waa soo sheegay waa in dal jir la ahaado qof walba dhinaciisa wadankiisa oo ka maarad ka taageero ka wax walba oo ku taageeri karaba amba wax walba ku difaaci kara wadanka dhinaca ka taageer ka difaac wax alla waxay yihiinbo marka waxaan idinku salaam kaga tagay insha Allah isgarab istaag isgarab qabasho insha Allah bismillah karim haduu ku cusub yahay YouTube kayga walaal macaan subscribe isaar marka ugu horeyda like iyo wixii isi share garay insha Allah bismillah karim hadad hore ila joogtan waxaan ka codsanayaa wad mahadsantahay jazakallahu khair waxaan ku leeyahay meeshaad ka sii wad garab istaagad garab taagan tahay subscribe-ka qoradiisa soo noogahay like iyo commentiga iyo ina saaxiibayaashada u sii share garayso insha Allah waxaan isaga tagnaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.